Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ah ku xidhan Hanilaki channel. Casharkan waa casharkii carabiga aynu ku baranaynay. Shalaan rabay inaan soo geliyo mashquule raali noqda. Maalintii hore halkan buu inoo soo joogay. Idinkana waan idinku yidhi dhageysta CD-gii ka dhageysta ayaan idinku yidhi. Ciddii buugga haysatay iyo ciddii PDF ahaanba ula soo degtay waan baray sida CD-ga loola soo degayo. kuwan iyaguna waad dhageysanaysaan sidoo kale casharadana waa la dhageysanayaa hoosna waxa kusii xusan imtixaanaad casharkeenii chapterkii 2 ayaa dhamaaday marka casharadan waxa la idinku weydiinayaa kuwan oo dhan waxa la idinku weydiinayaa yani sidaad u barateen ayaa imtixaan weeyaan kasoo wada shaqeeya haddii aad ii soo dirtaanna waan idinka saxayaa insha Allah haddii kaloo aad fahmi weydaan meelana insha Allah isoo weydiiya diyaar baan ahay inaan idiin sharaxo whatsappka igu soo dira ama hoos commentigaba soo dhiga insha Allah waan idinka soo jawaabi doonaa haddii wax idinku adkaadaan oo kale kuwana ardayda buugga haysato waa haystaan kusaas aad ugu dulfay garaysaa si aad u baratid fartii sida loo qoraayo carabiga kuwa PDF ka haystana hala soo saartaan warqada soo saarta kabacdi ku dulfay gara haddaad awoodaan insha Allah maanta marka waxay noo bilaabmaya chapterkii 3 ayay noo bilaabmaya halkaas waxaan hadda socono oo dhani waa chapterkii 2 way imtixaanaadkiisii oo dhan waxa soo dhami ka soo shaqeeyay intaad awoodaan oo ii soo dira insha Allah halkan waxay noogu bilaabmaya chapterkii 3 waad aragtaan guriga chapterkeena 3 الوحدة الثالثة chapterka 3 السكن وي ciwaankiisu oo ah hoyga yani meeshaad degan tahay hoygaaga meeshaad degan tahay ku nooshahay weeyaan waad aragtaan gurigana chapterkeena 3 markaa hoyga ayuu ka sheekeynayaa halkan waxaa noogu qoran الوحدة الثالثة chapterka 3 السكن ciwaankiisu yahay hoyga الدرس 19 casharkii 19aad alcardu soo bandhigid الحوار الأول wada sheekeysiga koobaad undur eeg wastamic oo dhageyso waacid oo kuna casho wada sheekeysigeennii casharkeenu ku bilaabmayay chapter walba markuu bilaabmayo wada sheekeysi ayuu ku bilaabmaa wuxuu u dhaxeeyaa wada sheekeysigani Axmed iyo Xasaan Axmed wuxuu yidhi assalaamu calaykum uu salaamay salaantii islaamka Xasaanna wuxuu yidhi wacalaykum salaam isnuu ka qaaday isagoo salaantii islaamka isnuu kaga qaadaya Axmed wuxuu yidhi ayna taskunu xagee ku nooshahay sidoo kale ayna taciishu na wada odhan kartaa ayna taciishuna waa halkee ku nooshahay ayna taskunu xagee ku nooshahay Xasaan wuxuu yidhi askunu fii xayil madaar waxaan ku noolahay buu yidhi xaafadda madaarka askunu waxaan ku noolahay yani waxaan deganahay fii xayi waa xaafad fii xayi xaafadda almadaar madaarka magaceeda xaafadda magaceeda la dhahdaa xaafadda madaarka marka xaafadda ayaan deganahay ama madaar bay u dhowdahay ama waaba loo bixiyeyba magacaas xaafadda madaarka wa ayna taskunu anta adiguna halkee degan tahay Xasaan ayaa isna su-aashii weydiinaya Axmed wuxuu leeyahay adna xagee degan tahay wa ayna taskunu anta adiguna xagee degan tahay Axmed wuu jawaabay wuxuu yidhi askunu fii xayi aljaamica xaafadda jaamacadda la yiraahdo xaafadda magaceeda weeyaan ama jaamacad baa iyadana sidoo kale ama jaamacad baa ku taalo loogu magac daray amaba magaca waa la iska dhahdaa xaafaddaas ayaan deganahay buu yidhi Xasaan wuxuu yidhi Xasaan ayaa su-aal kale weydiiyey wuxuu yidhi hal taskunu fii beyt ma waxaad ku nooshahay guri ma guri ayaad ku nooshahay yani iminka dadka waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdid haddaanu guri ku noolayn halkuu ku noolaan lahaa ayaa laga yaabaa inaad istidhaahdid laakiin isagu su-aasha wuxuu u weydiiyey waxaa jira shiqaq ayaa jira waxaa jira fooq cimaarad dheer fooq dheer fooqaas waxa ku jira guryo badan guryahaas guri lama idhaahdo
waxaa la dhahaa shiqaq. shiqaq waxa weeyaan fooqii meeshii guriga uu ka dhismaayay dhulka unbaa dhowr dabaq kor loo taagay oo fooq laga dhigay. dabaq kastana waxaa laga yaabaa in 2 guri 3 guri ay ku jiraan ama 1 guri uu yahay dabaq kaste. marka kuwa guri lama dhaho, laakiin guri waxaa la dhahdaa guriga caadiga ah geedhkii ku soo leh hadduu doono ama yaanu geedhba lahaan adigu guri caadiya oo dhulkii ku yaala oona cidina kugula jirna ama aana cidi kaa sarayn oo kale ama aana cidi kaa hooseyn oo kale, yacni aan fooq ahayn, kaas ayaa guri la dhahaa. marka wuxuu weydiiyey hal taskunu fii beyt, ma guri ayaa degan tahay? aynu hoose sii degno. axmed markaa wuxuu ku jawaabay nacam, haa ayuu yidhi. guri miyaa degan tahay markuu yidhi muxuu odhanayaa may ama haa jawaabtii. marka axmed wuxuu yidhi nacam haa, yacni gurigaa ayaan deganahay. askunu fii beyt, nacam askunu fii beyt, haa buu yidhi oo guri baan deganahay. marka axmed ayaa su-aasha weydiiyey xasaan, wuxuu yidhi hal taskunu fii beyt, guri miyaad degan tahay? ama wuxuu odhan karaa wa anta, adiguna, isagoon odhanba hal taskunu fii beyt ayuu isna odhan karaa wa anta, adiguna, yacni jawaabtii su-aashii aad weydiisay wuu ku caliyey wa anta, adiguna. laakiin axmed wuxuu yidhi sidoo kalena sidanna waad ku weydiin kartaa wa hal taskunu fii beyt, guri miyaad degan tahay? marka xasaan wuxuu yidhi laa, maya buu yidhi, anu guri ma degani, askunu fii shiqa, shiqad ayaan ku noolay. shiqadi waa tan halka sawirkan waxaan ku aragnaa fooq, halkan waxaan ku aragnaa daaqado, kaas guri sare inuu yahay laga yaabaa, kan guri hoose, kan dhinac kale inuu yahay. balakoono ay halkan ku haystaan meeshan daaqadii markaad kasoo baxdeed ka arkaysid banaanka balakoono, yacni waa fooqii. marka wuxuu yidhi xasaan wuxuu yidhi laa, maya guri ma deganiye, askunu fii shiqa, shiqo ayaan deganahay. marka axmed wuxuu yidhi maa raqmu shiqatika, maa raqmu shiqatika, lambarka shiqadaadu waa imisa? marka fooqii markaad sidaa usoo geshid qolo waliba lambar bay leedahay, 1 2 3 4 lambarkii ayuu weydiina. wuxuu leeyahay lambarka meeshaad degantahay shiqadaada lambarkeedu waa imisa? xasaan wuxuu yidhi 5 waa 5 ayuu yidhi, waxaan deganahay 5, yani guriga 5aad lambarkiisu waa 5, shiqada 5aad way noqonaysaa marka lambarkiisu uu 5 yahay. wamaa raqmu beytika, lambarka gurigaaguna waa maxay buu yidhi. marka guri waliba sidoo kale isna lambar buu leeyahay. wamaa raqmu beytika, xaafadaa inta guriye ku taala guri walba lambar buu leeyahay, guri walba lambar ayuu leeyahay. marka wuxuu yidhi gurigaaga lambarkiisu waa imisa? marka axmedna wuxuu yidhi 9, waa 9, 9 guriga 9aad wey gurigiisu. hal mar ayaan soo dulmarayna insha allah. assalaamu calaykum, axmed baa yidhi. xasaan wacalaykum assalaam. axmed ayna taskunu? xasaan askunu fii xayi lmadaar. wa ayna taskunu anta? axmed askunu fii xayi ljaamica. xasaan hal taskunu fii beyt? axmed nacam askunu fii beyt. wahal taskunu fii beyt? xasaan laa askunu fii shiqa. axmed maa raqmu shiqatika? xasaan 5. wamaa raqmu beytika? axmed 9. casharkeedna aan hore ugu sii soconno. mufradaadkan kelmadahan waa kelmadaha casharkan hadda dhiganay la socda. casharkan hadda soo qaadanay kelmadaha ku dhex jira weeyaan. okay, undur wastamic waacid. halkan beyt, beyt waad aragtaan waa kan. beyt waa guri, beyt, beyt guri. shiqa waad aragtaan fooqii, shiqa waxa weeyaan guriga fooqa dabaqyada. raqam, raqam waa lambarka guriga, waad aragtaan albaabka uu ku qoran yahay 5, lambarka guriga ama albaabka lagu dhajini ama albaabka gidaarka uu albaabka dhinaciisa kale, gidaarka dhinacu albaabku dhegan yahay maahe, meesha yare kale agtiis, albaabka agtiis ayaa lambarka lagu dhajinaya. raqam waa lambar. xay, xay waa xaafad, xaafad waad aragtaan xaafadda guryo badan baa ku yaala xaafad. xay xaafad.
yaskunu yaskunu wuu degan yahay yaskunu wuu degan yahay ninkan yani gurigan uu degan yaskunu wuu degan yahay laa maya laa gacantii la dhaqdhaqaajiyey laa markaad farta saa tiraahdid murdisada farta murdisada markaad sidaa tiraahdid oo dhaqdhaqaajisid laa maya almadaar madaarka yani airportka meesha diyaaraduhu istaagaan airportka madaar aljaamica jaamacadda jaamacaddii aljaamica jaamacadda kelmadahan hadda halkan ku aragno waa kuwa casharkan hadda wada sheekaysiga labada nin wada hadlaya soo dhex maray kelmadihii ku jiray hadaynu hoos u sii degno halkan waxaa lagu yidhi sil xidhiidhi bayna kelimati wa suurati almunaasiba sawirka iyo kelmadda isku munaasibka yacni isku habboona isleh isku xidhiidhi ayaa lagu yidhi halka waxaan ku aragnaa beyt beyt waxaan ku xidhiidhinaynaa waa kaas beyt waa kelmaddii sawirkii oo guri ahna waynu ku xidhiidhinaynaa kor u kacna sin si fiican ugu wada xidhiidhino kusaacali beyt guri ku xidhiidhi sawirkii xay xaafad xay xaafadaha ayaan isna ku xidhiidhinaynaa xay xaafad raqam raqam lambar lambar aaga waxaan ku arkaa lambar 4 daaqadaas lambar shiqa shiqana waa shiqada yacni fooqii dheeraa guryaha ku dhex jirjiray u qaybsamaan shiqa markay badan yihiinna iyagoo dhanna jamac yihiinna shiqaq shiqaq markay mid tahayna shiqa okay halkan madaar madaar waa airportkii meesha diyaaraduhu fadhiisanayeen madaar laa maya laa fartii waa taa la dhaqdhaqaajinayo laa may na halkaasaynu ku xidhiidhinayna iyadana laa maya wayna farta ku xidhiidhina yaskunu yaskunu wuu degan yahay waa kan yaskunu wuu degan yahay gurigiisii waa kaasii gelaya jaamica jaamica aljaamica waa taas jaamacaddii casharkeennan halkan buu inoogu joogaa insha allah halkan waa wada sheekaysiga labaad ee jabtarkeena 3aad insha allah intaynu kaga kulmayna isbuuca dambe hadduu alla idmo cashar kale cusub waxaan idin leeyahay asxaabey fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu